farxallow sultaankani haybiya madashiyo duubeeye barakale aadna loogu baahnaa sayidkan boqranayno barakaan ku saarnaye noqobeela ururshiyo axmed lagu badhaadho bulshadow xaq sooraa suldaanka hadda meeshaan iskugu nimid ee la doortay oo beesha ugu jira dhammaantood ay doorteen beelaha kalena doorashada ay ku qanacsan yihiin inta culummada annagoo magaca culummada ku hadlayna waxaan leenahay waa u qalmaa in la doorto sababtu waxa ay tahay qofka markii ilaahay doorto khalqiga ayaa ilaahay jeclaysiiyaa xadiis baa wuxuu ahaa qofaan ilaahay dooran horta nina ma dooran karo hadduu hadda adduunyo iyo lacag iyo wax soo qaato shan bari sii socon mahayo marka koowaad qofku waa in ilaahay doortaa jibriil baa ilaahay u naadinahayaa jibriil wuxuu u naadinayaa ahlu samada ahlu ardadu haddana u naadinahayaa khalqiga oo dhan baa jeclaanahaya suldaan maxamuud waxaan ilaahay doorashadiisaa ku dhacday ardadaa laga doortay culummo iyo caamo waa dooratay waxaan rajaynaynaa dalka iyo diinta wax weyn inuu ka bedelo xafladan quruxda badan leh oo munaasabadan leh waxaa dhigay beesha ugu jire waxay walaalayaal u dhigteen waxaad og tihiin suldaankoodii cabdulaahi fayf suldaan maxamed suldaan ducaale suldaan kaahiye waa ka dhintay suldaankii markuu ka dhintay waa isku nimid waxaan ku raadinay haddii alla kuu roon yahay waa raadinay suldaankii suldaan ciddaan samata bixi kara abtiriskii ku fadhiya baan raadinay waxaan keennay oo doorannay annagu aan koofidii u gelinnay annagoo ka turjumayna beeshii 8 beelood oo ugu jire suldaan maxamuud suldaan ducaale baan koofidii baan u gelinay walaalayaal ceel waa waadi baa le inta joogtana waa markhaati intaas waxaan iskugu yeernay maantay suldaamada leh odayaasha dhaqanka leh culamo udiinka leh gabdhaha leh in maanta nalala caleema saaro suldaan maxamuud suldaan ducaale dad isjecel ikhyaar wada dhashay oo uliya diirkeeda ujeedo iyo ahdi iyo qowl leh iyo talo iyo imaam nacab soo ataagiyo facodka ma adkaadaan sida awrtu ma dhaasaan urur shaydaan iyo adeeg adoonsiga ninka lama ogolaadaan sharaftooda kuma iibsadaan shay afaaciye iskaashada islaam wada jira waa adkaan jiray ehliya qaraabana yobad walaalaha idin iriya Soomaaliya uurka kaysiya waxaan ku hadlayaa midda ugu jira kaliya maahan ugu jira waa beel saxad kamida suldaankuna waa suldaan Soomaaliyeed waa ugu jira malihi 12 beelood mudug iyo Puntland dhamaanteed ayaa ku salaamaya soo dhaweynaya waana qaadanay anoo ku hadlaya cilmaadiinka intaas waxaan ku leeyahay suldaan afar suldaan adoo u dambeeya anu kulay nin qobyada dadka waa kala qaan ducaalaka iyo waxa nin Soomaaliya oo muumina oo cadaalad oo ummadaha la dulmayo ama sida yaryarka lagu tilmaamo aad u dhaqaaleeya cadaalad iyo sinaan ku waday markaadna intii oo kale ayaa dhammaan laga rabaa baahid suldaan ugu jire maahid mid sacad maahid mid habargidi maahid mid Soomaaliyeed batay koow hooda mid rabtaan u aado qabiil qaran ma noqdee midii habargidi markaa ka tago mid hiraab batay mid hiraab hadii laga tagana mid hawiyaa tahay mid hawiyaa hadii laga tagana waxa daalay mid irir batay Soomaali baad u tahay Puntland baad u tahay ninka ceelaya joogay qarno iyo xaafuun iyo midka hobiyo jooga waa isku mid si cadaalad ah iyo sinaan inaa u dhaqdaan looga doonayaa isimada hadda halka fadhiya iyo nabadoonada iyo murwooyinka iyo siyaasiyiinta iyo culimadiinka iyo qaybaha kale oo bulshada saxaafadda iyo dhalinyaradaba waxaan ku soo dhaweynaynaa sidaas oo kale dhinaca Puntland waftiga ka yimid anoo afkooda ku hadlayo hadda la igu yeeray
inaan munaasabadan u hambaliyeyno suldaanka iyo ciddii soo diyaarisay oo soo caleema saartay lana qaadanno oo ku soo dhoweyno haddaanu nahay dhinaca Puntland inaan ku soo dhoweyno beesha soo diyaarisay suldaanka oo ugu jire ama sacad suldaanka la soo diyaariyay waa idinla qaadanay annaguna haddii alla idmo markaan idinla qaadanay ka bacdi waxaan odhanayaa beeshana kelmad suldaankana labaan odhanayaa haddii alla idmo waxaan odhanayaa suldaankaan ku hormarayaayo qofka sadanada loo dhiibo ama asagaa lugooya ama beeshaa lugoysa cidda u dhiibtay baa lugoysa sadanada ama isagaa lugooya waxaan kuu rajaynayaa inaadan noqon mid lugooya isagu beeshana waxaan u rajaynayaa ninka ay suldaanka ay u dhiibteen hawsha inay asturaan oo la qabtaan hawsha kuna xurmeeyaan una dhaganuglaadaan anoo ku hadlaya magaca beesha Tanaada Daarood ee Leelkase magaca beelaha Daarood magaca Puntland Soomaaliya magaca Soomaaliya dhammaanteed anoo ku hadlaya suldaan waxaanu leenahay ku leenahay soo dhawow waa ku dooranay waa idinla dooranay waa idinka ajiibnay waa idinla qaadanay si buuxda oo mug ah oo labada gacmoodba ah waxaan beesha sacad lagu jire suldaanka ay maanta caleema saarayaan suldaan maxamuud ducaale kaahiye waa idinla qaadanay suldaankana waxaan leenahay soo dhawow saa u doorateen baan idinla doorannay khayr baana ka rajaynaynaa xaaladaha carrada yeelana uga shaqeeyo aad baan u soo dhowaynaynaa suldaanka waa in la qaadanay waa in la doorannay waa in la soo dhoweynay weliba anu dadka waa kala aqaanaaye wuxuu ka soo jeedaa dadku xisbi weeye xisbigii hore jiri jiruu ka soo jeedaa suldaanku ayadaana wax ku noqon karnaa ku faraxsannahay ka soo qaybgalka caleemasaarka suldaan maxamuud suldaan cabdulaahi ayaanu soo dhoweynaa caleemasaarkaasna ku faraxsannahay kana qayb qaadanaynaa kana markhaati noqonaynaa marka waxaad moodaa mahmaadi ahayd bishu meeshii laga eegi jiray bay ka dhalataa in suldaankaanu yahay oo uu ka dhashay meeshii laga eegi jiray waa sidaan uga soo qayb gallay ninbashiradii aabbihii lahaa waa shinsanayaayo shaatigii ducaalana hadduu sheegtay waa heli shirka boqorka sharafta iyo camdiga loo sharaxay maanta shako laguma dhuuntee midkaa shaarica lagu doortay culummada sharciga haysa iyo shuqulladii diinka dhallinyarada soo shawrtay iyo shaybka talinahaya gabdhaha shukada wadasitiya shaashka iyo taajka oo mashxaradda shaafida udgoon sharaf u qaadahay anoo shaacirkii yahaa gabyoo shibaya soogaanta intaasoo shirweynaha fadhido shaahidahoo joogta iyo sheekadu ninkay gaarto oo nala shaqaynaya sidaasoo shuruudaysan baa loogu shubay woode ninkii maalaha shaaquftama shuqulkii weeyaan idinku kharashka iyo hawsha ayaad leedihiin laakiin suldaanku sida horba loo sheegay aana ku naqaan waa suldaan Soomaaliyeed ma ahan suldaan beeleed anigoo ku hadlaya magaca beesha reer Sheekh waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaan maxamuud suldaan ducaale kaahiye sida aad nagu dhiibteen baan la qaadanay kuna soo dhaweynaynaa uguna hambalyeeynaa insha Allah suldaanka suldaan maxamuud kaahiye ducaale iyo intii soo dooratay aanu shubkiisa waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan
qalbi furan maskax furan intii nala soo ka soo qayb gashana waa soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay xafladan la dhigay macnaha loo dhigay oo la garanayo ku soo dhawow suldaan maxamuud ducaale kaahiye maxamuud ku soo dhawow waxaad ugu soo dhawaataa asal iyo farac dadku weeye asalkaaga baa suldaannimadan lahaa waxaa lahaa awowayaashii iyo aabbayaashii baa lahaa ayadan annaguna kugu soo dhowaynaynaa suldaan maxamuud suldaal ducaale kaahiye maxamuud xafladdan maanta loo dhigay doorashadiisa halkan lagu dooran mahayo ama waxay ahayd mid soo jireen ah oo hidde iyo dhaqan ah oo dhaxaltooye ah oo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ninbe nin uga dambeeyey waxaad ku garan kartaan masawirkaas dhabarkayga ah ducaale kaahiye maxamed ducaale cabdullaahi maxamed ducaale suldaan maxamuud ducaale kaahiye waa soo jireen mar horaa la doortay ilaahay waa u kasay ummadduna haddii ilaahay idinkale waa taqaanaa taariikh bay leedahay taariikhdaa xusaysa marka doorashadiisa waxaa laga hadlay taariikhdii reer ducaale kaahiye oo duubka jaamaxaange hadda uu sheegay oo gadaashayda raggaa safan annaka reer jalaf haddaan nahay meel gaar ay noogu qoran yihiin ducaale kaahiye taariikh buu lahaa abtiyaashiis baan ahayn waxaan ku lahayn kursi fiican baan agtiisa ku lahayn adigana waxaan kaa doonaynaa sidaa inaad yeesho waxaan kuu sheegayaa maxamuud waa nin aqoon-yahana waa nin ameerika deggan waa nin dalka kan wax ka beddeli kara dhibaatada halkan ka jirta maxamuudow suldaan aad iyo aad bay u badan tahay aniga 2006kii markaan galmudug dhisnay ilaa iyo maanta 11 jeer aan dhigay faan noole fari kama qodna hadday nabadda tahay hadday waxbarashada tahay hadday caafimaadka tahay waxa badan baa ka dhiman dalka kan waxaan kaa codsanayaa hawshaas aad iyo aadka u qirada weyn in aad u guntatid oo nagala shaqaysid suldaanka soo jireenka oo abtiriska dheer leh waxaan ku soo dhowaynaynaa suldaannimadiisa iyo beelaha 8 beelood oo ugu jira sida u soo xuleen baan u soo dhowaynaynaa haddaanu beelaha kale oo reer sacadnahay sidaasaanu kula soo dhowaynaynaa unagu aqoonsannay suldaannimadiisa waan u aqoonsannay aniga haddaan istilmaamo waxaan ka imid irifka mudug galbeed ugu xiga intaas waxaan u soo socday inaan ku qanacsannahay runsay sida ay beesha ugu jira ugu soo xushay suldaanka suldaan maxamuud say u soo xushay inaan ku qanacsannahay baan intaa u soo maray waan ugu nimid haddana ku soo dhowaynaynaa suldaan soo dhowow baan leenahay suldaan soo dhowow beeshana waxaannu leenahay war waa in la qaadannay oo waa in la aqoonsannay amase soo dooratay ugaaska suldaanka maxamuud ducaale kaahiye waaba nin ilaahay nuur u yeelayo ducaale kaahiye anigu 64 baa jira mana arag marka asagu waaba nin awliyaa iska soo xubsiibanayay la tahayo waaba iga dhalin yarya marka wuu mahadsan yahay waxaan meeshaan ka caddaynaynaa anigoo ku hadlaya beesha reer sheekh cabdalle curadka haddana jufasi cabdalle ka mida haddana uu yahay aniga abtigay ninka la doortay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waan soo dhowaynaynaa waxaan caddaynaynaa inaan ku dhannahay beesha iyadu inaan dooranno soo jireenka inaayaha leh nin kastaba inaayihiisaan ku dooranaynaa nin kastaba inaayihiisaan ku dooranaynaa anoo ku hadlaya magaca reer qurdhaale
suldaan soo dhowow ku soo dhowow saddanadii kaahiye ducaale adigu ugu dambayso 4 saddana maraysa ku soo dhowow suldaan waa kugu soo dhowaynaynaa war doorashaa socota oo dawlad baan rabnaa war doorashaa socota oo dawlad baan rabnaa suldaanna daadiyo diiran baan rabnaa daraja wiil qaatayo deeqsi soo tartamay maxamuud ducaala la doortee ducaala ushuba suldaan maxamuud salaantaada iga guddo suldaan maxamuud salaantaada iga guddo sujacyadibaa ku dhalay looga haraasadano sifkii ducaala kaayaan maantay saharaya allah samayeela meeshii salkaawiya waxaan soo dhowaynaya maxamuud ducaale kaahiye soo dhowow beesha ugu jire waa inoo kaa keentay annagoo dhan baa ku doorannay waa inoo kaa keenay sacad baan nahay sacad baan marka hore ku keenay ka bacdina soomaaliya oo dhan baan kuu keennay iyo walaalaha walwalaalayaal intaas ma nala qaadateen intiina kale nala qaata salaamaya dadweynaha ka soo qayb galay xafladdan lagu dooranahayay suldaan maxamuud suldaan ducaale kaahiye yaan soo dhowaynaynaa iyo ummadda islaamka oo dhan oo soo dhowaynaysaa suldaan ku soo dhowow anigoo ku hadlaya magaca beesha reer barqadle waa ku soo dhowaynay suldaan waa ku soo dhowaynay suldaanka waa soo dhowaynay ahay dhaqankuna haddeed waa kugu soo dhowaynay ilaahay xilka aad qaaday ilaahay ha kugu xafido ilaahay aamiin dhaha ilaahay xilka ha kugu xafido ilaahay ha kugu ammaansho suldaan waxaan maqlayaa wuqu jire waa gurigaaga hoose suldaanka mudug baad tahay xataa suldaanka galmudug ma tihid suldaanka mudug baad tahay marka laga soo kacana suldaanka soomaaliyaa tahay baan kuu dooran annagu suldaanku maanta farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka iyo ducada suldaan maxamuud suldaan ducaale suldaan kaahiye oo beesha ugu jire ay u duubatay inuu noqdo suldaanka guud halkan keliya waxaanu rabnaa inaan uga ducayno suldaan waxa weeyaan suldaamadii reerka keliya xukumi jiray xilligan adag muxuu ahay dhib iyo tacaddi badan bay kala kulmaan adiga maanta 8 reer ayaa ku caleemo saarantay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad noqotid suldaan cadaali ah oo naftiisa iyo dadka duubta iyo Soomaali oo dhan cadaali u noqda ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad noo noqotid suldaan guud oo dhaqankayga ku soo siyaaday waxtarna noo yeesha suldaan maxamuud wuxuu ahaa aasaasiyaashii galmudug aniga weligay ismaana arkin daraad ka hor laakiin waan ismaqli jirnay aasaasiyaashii galmudug buu ahaa Mareykan North America joogay wakiilkii galmudug intii ay jirtay buu ahaa North America waliba asagoo markii dambe ahaa madaxa jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America aqoonta aan u leeyahay waxa weeye intaa ilaa 2004 in uu ka shaqeynayay arrimaha gobolkan waxaan soo dhaweynay suldaanka maanta caleemasaarkiisu dhacay hore loo doortay beesha ugu jira dooratay reer ugu jiro way la soo dhaweynay way la qaadanay reer waqow jiro way la dooranay way la qaadanay aqbal ya jiib soo dhaweyn waxaan meesha u soo istaagay inaan ka mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka suldaanka guud ee uga jira suldaan maxamuud ducaale kaahiye waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin dhammaantiin isimada nabadoonnada ugaasyada dhammaantiin aad baa u mahadsantiin
waxaan meeshaan u soo istaagay laba qodob kale inaan ka hadlo qodobka koowaad waxa weeye suldaanka waxaan yaraan rabaa inaan ka sheego waxaan meeshaan ku keennay haddaan nahay dhaqanka ugu jire anigoo afkoodii ku hadlaya waxaan suldaankan ku soo xulnay 4 qodob marka koowaad waa nin aqoon-yahana oo aad maqasheen taariikhdiisa CV-giisa laga warbixiyey marka labaad waa nin samafala oo in badan samafalka ka soo shaqaynayay oo dadka dhammaantood ay ka warqabaan marka afaraad waa nin aslaaxa aad ugu dheereeyo oo aan maartay ku ogaanay kala fariisanay kala sheekaysanay in badan aslaaxa ka soo shaqaynayay marka afaraad waa ninkaas dhaqanka soo jireenka ka soo jeedo sidaas ku xiga marka hawsha meeshaan ku keenna hawl yar maahan idinka dhammaantiin intii ka soo qayb gashana waa uga mahad celinayaa waxaan rabaa qodob labaad inaan ku daro intaan dhaqanka meesha joogtaa fartiin bay soo jeedisay codsi bay soo jeedisay codsigaas anoo ka jawaabaya waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego codsigiina waa qaadnay kaalinta koowaadna waxaan suldaanka waxa weeyaan ku soo dhaweynaynaa oo aan maartay ku sharfaynaa 100 geel ah laga bilaabo maanta aan hortiina rabnaa inaan ku cadeyno annagoo codsigiinii iyo wada shaqayntiina ka jawaabaya aad iyo aad baan u mahadsantiin salaadiinta Soomaaliyeed ee nagala soo qayb galay xafladda ballaaran ee ka yimid dowlad goboleedka Puntland odayaasha beesha Tanade odayaasha beesha Majarteen odayaasha beesha Meheri odayaasha beesha Direed odayaasha beesha Shiiqaaleed odayaasha ugu jire ee xafladda tan maanta dhigay odayaasha Odow iyo odayaasha curadka Cabdalle dhammaan salaadiinta marti sharafka dhalinyarada bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan raaligelin ka bixinayaa xafladda oo maanta dib u dhacday iyo dadka oo waqti badan taagnaa aad iyo aad waqti badan u taagnaa raaligelin ayaan ka bixinayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego odayaasha iyo shacabka beesha ugu jire maanta way fasaxday waxay yiraahdeen waa ku duubnay maanta waxaan ahay suldaan Soomaaliyeed waxaan ku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto raas casayr iyo raas kambooni waxaan ugu baaqayaa nabad iyo midnimo iyo wadajir ayaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay walaalayaal kuwiina halkaan jooga iyo kuwa naga dhagaysanaya adduunyada dacaladeeda waxaan leeyahay nabad iyo midnimo ayaan idinku baaqayaa waxaan kaloo maantay nabad ugu baaqayaa dadkii walaalaha ahaa ee dhibku uu kala gaaray ee beesha Direed iyo beesha Shiiqaaleed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in la joojiyay dagaalkii haddana diyaar loo yahay in la wada hadlo waxaan ku guwaabinayaa dadka walaalaha ah nabadda ayaa naas luga leh wiil baa ku dhinta dagaal waa dad walaalaha waa kugu dhimay ka dhimay waxaan leeyahay walaalayaal wada hadalka ayaa fiican waxaan rajaynaynaa meeshaas nabad waarta inay ka dhacdo inta ka qayb gashana waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo waa walaalahan intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacantana rabaahu boogadayaan leeyahay walaalayaal maanta waa maalin weyn aad iyo aad baan u faraxsanahay maalin dhaweed ayay ahayd beesha ugu jira ay calaamad saartay maantay beeshii Sacad iyo dariskii oo dhan dhinaca Puntland aad baan ugu faraxsanahay meesha ka soo qayb galaan waxaan kaloo salaan u dirayaa aan markii hore hilmaamay halmaanaada kuma jiro maamada nabadda caasho geelle waxaan leeyahay caasho walaal soo dhawow waxaan rabaa inaan idiin sheego caasho iyo Cismaan Maxamed Ducaale oo hadda ila socday inaan nahay dadkii ka shaqaynayay nabadeynta gaalkacay labada dhinac waxaanu juhdi gelinay inaan wacyi gelinno inaan ka qayb qaadano isdhexgalka iyo nabadda labada
qabiil ee walaalaha ah ee ku nool gaalkacyo labadeeda dhinac qabiilooyinka walaalaha ah waxaan sheeko ku maqlaa anigu mar walba ayadoo la leeyahay labada dhinac dad walaalaana wiil iyo abtigiisaana waa isdili jirnay wiil iyo walaalo abtiyaal isku isma dilaan dhaqankaas aan bedelo waxa in la isdila maahan wiil iyo abtigiis in isdilaan maahan nabadda waa inaan ka shaqayno dadkii waa bislaaday horta aad baan ugu faraxsanahay 3 goor ayaan tagay dhinaca Puntland aad baan lagu soo dhaweeyay aad bay u mahadsan yahay meeyarka magaalada gaalkacyo xasan aad buu noo soo dhaweeyay waa ka mahad celinaynaa caasho geelle wayna marti qaaday waa soo dhaweynaya waa ka mahad celinaya dhammaan walaalayaal waxa kaliya oo maanta hadal iima harin waqtiguna waa ciriiri waxaan ku baaqahayaa oo iga ballan ah odayaasha magaalada gaalkacyo ama gobolka mudug wax alla wixii nabad looga baahan yahay inaan qayb ka qaadanayo nabadda ayaa wax weyn ah gurigiisa nin dab uu ka shidan yahay faciis lama tartami karo waxaanu doonaynaa inaanu midowno horumarka waddanka inaan ka shaqeyno nabadgelyada inaan ka shaqeyno ayaa naga go'an aabbahay ducaale kaahiye wuxuu ahaa nin nabadeed ummadda Soomaaliyeed iyo dariska iyo meel walbana xiriir joogto ah ayuu la lahaa sidoo odayaashu ay u sheegeen culimada ayaa budligiisa ahaa budliga aniga maamulkayga iyo hogaankayga wuxuu noqon doonaa marjacaygu waa culimada because sababtoo ah culimadu waa indhihii shacabka walaalayaal hadalka waxba dheerayn maayo dadku waa daalan yahay waxa kaliya oo rabaa inaan kula dardaarmo midnimo iyo wadajir iyo isdhaxgal waxaan kugu baaqay dhamaantiin aan leeyahay waadna karaamayseen waadna soo ajiibteen waadna garab istaagteen rabbi ha idin karaameeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh